iminkaan kuu sheegayaa si fiican u duubo maskaxdooda kuwii midgaannimada iyo takoorka iyo aflagaadada inay anigay qabiil caayaan oo qof caayaan ay ku jirto maskaxdooda si fiican ha u furaan kala markaan u dhigana aniga laftigayga ma aragtay sharafteediyana meel lagaga dhaco anoo qof dumara waxa weeyaan muhiim iyo qasabna aan ahayn mar kasta in ma aragtay haddii aan guursanayo iyo haddaanan guursanahayn dadweynaha ma aragtay ogaadaan iyadan qasabhay waxaan rabay inaan horta halkan ugu horeyn ka cadeeyo anigoo miirkayga iyo maankayga qaba in barkhad jaamac batuun iyo anagu aanu nahay laba qof oo markaasi istoortay heshiiyey kadibna isguursaday wabacdayna ilmo ilaahay ku arsaaqay waxaan leeyahay dadiyowga intaa wax ka dhex raadinaya ma aha intan tii wax laga dhex raadin lahaa maaha nimanka siyaasadeynaya barkhad baa gabadh guursaday aanay isku qabiilahayn oo ay uga jeedaan magayo qabiilada kale maadaama sugde qabiilka yahay waxaan leeyahay nimayahow dib isoogu noqda hablaa dhasheen ugu yaraan waa qabtaan waxa weeyaan waa la dhalateen haddaydaan u dhixin waa u dhixi doontaan oo de waa guursan doontaan marka intii wax laga dhex raadin lahaa maahe dib ku noqda baan leeyahay sheekh diintu maxay ka qabtaa in qof muslim ah nasabkiisa wax laga sheego ilaa heer la gaarsiiyo in guurka loo diido dadku siduu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ramaantood aadam baa dhalay aadamna carru ka soo jeedaa cid nasab kaga fadli badan ma jirto laakiin waxa lagu kala fadli badan yahay waa alla ka cabsiga iyo iimaanka iyo akhlaaqda waa sidaas daraadeed xaqiraadda bini aadamka lagu xaqira nasabka sidoo nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waa qodobada ka dambeeya jaahiliyadii diin la'aantii waxyaalaha ka dambeeya kamid islaamka ka horeysay wuxuu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha xun oo aad u liita oo ummadda qaar kamid ah ayna ka tagi doonin oo dad uun haysta la arki doono weligeed aan dhammaan doonin buu nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam sidaas daraadeed ninna kama nasabroonid ninna kama qiimo badnid waa jaahiliyadii laga dhaxlay gaalada laga dhaxlay waa inay mujtamaca dhexdiisa ka baaba'do waxa ka dhalan karaay oo muaamalada ah oo guurka ah oo la dhaqanka ah adar maxaad kaga fiicanta diin haday toqoto waad liidataa haday dhaqan noqoto waad akhlaaq xun tahay haday fidna noqoto waad fidna badan tahay ninka qiimo badan ka diin badan ka qurux badan oo ka xoolo badan oo ilaahay kaaga dhow ba inta soo istaagtaa waxaad leedahay wuxuu ahay nasab matid ya nasab maxalqa oo sida isu dhan adiga hada nasab gaariga u baahnaa waxa sidaraad u taallay marka waxa jaahiliyada waxay u baahan tahay waa qodobada in aad loola dagaalamo u baahan oo si wada jira loola dagaalamo oo in la baabi'iyo u baahan waxaan aad uga xumahay inay Soomaalina walaalahoodii la dhashay qaar kamida ay dulmi ku yasaan ay ku xaqiraan gaalana ay u gacan haadiso oo ay tiraahdo hadii walaalihiin sidan idin galeen annaga idin dhaaneen noo imaad soo nasiib xumo ma waa nasiib xumo weyn waxaas in la baabi'iyo weey waana dambiyada aad ka waaweyn bay kamid tahay aasaarteeda iyo raadkeeduna ma fiicna dhibaatooyinkan haysta ee dal iyo dadba haysta waxyaalaha ay ka dhasheen sababtoo waxa kamida dulmiga dadka loo geystay qayb muhiim ah ka tahay laana dulmiga midhiisu waa kharaariye wax xun ba ka dhashay wallahu a'lam